كاتو داوديال meel kastoo ay joogtaan kulan wacan magacayga waa Bashiir Cabduqaadir waxaan halkan jeclahay inaan idinku soo gudbiyo muuqaal kooban kaas oo aan kaga hadli doono dhacdo fool xun ah oo ka dhacday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose dhacdadaas ayaa waxa la sheegay in loo geystay labo maamo oo da'doodu lagu sheegay midna 20 jir midna 85 jir dhacdadu waxay ka dhacday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose runtii falkaas kufsiga ah waxaa geystay ruux dhalinyaro ah kaas oo da'diis lagu sheegay 19 jir ilaa 20 jir runtii dhacdadaas waxay ka dhacday degmada Afgooye sida ay wararka nagu soo gaarayaan saraakiisha laamaha amniga degmadaas oo howlgal ka sameeyay isla goobta uu kufsiga ka dhacay ayaa waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan dhagarqabihii ka dambeeyay falkaas kufsiga ahaa intaas kadib bulshada ku nool degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen ama ay cabsi ka muujiyeen falkan ka dhacay isla degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose runtii Afgooye falkan maanta ka dhacay waxa ka horeeyay fal kufsi ah kaas oo loo geystay laba gabdhood aad u da'yar kuwaas oo da'doodu ahaa 4 jir iyo 3 jir kufsigaas wuxuu ka dhacay isla degmada Afgooye kufsigaas ee loo geystay labadaas gabdhood aad u da'yar ilaa hadda ma jirto kiiskooda meel lagu sheegay saraakiisha laamaha amniga hore waxay u sheegeen in ay ku daba jiraan dhagarqabayaashii falkaas geystay runtii dhacdada kale ee maanta dhacday xanuunka badan ayaa waxaa loo geystay sida aad daawateen ama aad sawirada ka aragteenba maamooyin da ah kuwaas oo lagu la kacay fal ka baxsan bini'aadanimada runtii degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose waxaa hadda ku sugan oo aan wax ka weydiin doonaa عالم محمد معلن وكمل ده dhalinyarada degmada Afgooye ahna dhalinyarada ugu fircoon ee ku nool degmadaas caalin ayaa waxaan ka weydiin doonaa sida ay wax u dhaceen iyo waliba inuu u sharxo bulshada daawanayso qaabka ay wax u dhaceen iyo sida gacanta loogu soo dhigay dhagarqabihii falkan kufsiga ah oo geystay maamooyinka da'da ahaa runtii caalin soo dhaweynaya caalin soo dhawow waxaad tafaasiil ama warbixin naga siisaa sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda guud ee degmada Afgooye iyo dhagarqabihii gacanta lagu soo dhigay halka uu ka dambeeyo iyo saraakiisha laamaha amniga haday ka hadleen arintan iyo maamulka degmada Afgooyeba waan ku soo dhaweynaynaa caalin soo dhawow Bashiir Cabduqaadir arrinkan hadda Afgooye ka dhacay waa arrin uu ku ah dalka idil iyo gaar ahaan degmada Afgooye iyo gobolka Shabeellaha Hoose markasta markay wax dhacaana waa Afgooye way ka duwan tahay waxyaabaha magaalooyinka kale ka dhaca sida aad dareemi kartaba Afgooye arrinka kufsiga waxaa dhacday gabar laba cilmood oo walaal ah oo da'deedu mid 4 jir in wadhaxaas la xoogay la faraxumeeyay oo ilmo yariisa waa jicisa haddana waxaa ka dhacday dalka oo ka dhaca waxyaabo qaldan qaarkood laakiin tan Afgooye waa mid ka gooniya waxaa dhan xaabo baray sabriye oo 70 jir ah ayaa waxaa xoogay Xasan Cali oo 18 jir ah ciidamada amniga aad u mahadsan yihiin wuu xiran yahay ninka wuxuu ku xiran yahay saldhigga degmada haatan kaligeed ma uusan xoogin Ramla Maxamuud Yuusuf konta 5 jir ayadana wuu xoogay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa 18 jir waxa xoogay 18 sano jira wuxuu xoogayaa waa ayeeyooyin hooyo maaha gabar maaha wuxuu xoogo waa hooyooyin ciidamada amniga degmada aad u mahadsan yihiin inay gacanta ku soo dhigaan ninkii falka faashuxna geystay oo haatan ku xirnaado wuxuu ku xiran yahay saldhigga degmada maxkamad baa lagu saaray degmada wuu qirtadana waa qiraal inkastoo sheegay hal maamo inuu xoogay mid kale uu dafiray laakiin waxaan dhaliil u soo jeedinaynaa maamulka degmada oo aan wax looga hortago barnaamijkan aan ka qaban magaalada ha ahaato wacyigelin dhan walba ay ahaataba laakiin ciidamada amniga aad u mahadsan yihiin howlgalka ay ku soo qabteen dhagarqabahan ee hooyo ayeeyo kufsaday Afgooye waa labadii siyaabood ay ka dhacday midii ugu horreysay midii gabdhihii walaalaha ahaa 4 jirka ee mid ahayd ku jirtay taas hoo ayeeyo maanta in la kufsado walaa wax nagu cusub marka aad baad u mahadsan tahay insha Allah kulli barnaamijkan waxaan u maleynayaa san aaminsanahay in ay waxyaabo kale ay jiraan ay ka dambeeyaan maxaa yeelay wiilka hadda wuxuu qirayaa sheegayaan in AMISOM ay siiyeen
waxyaabaha uu ku kiciyey dhibaatada inuu geysto. waa degmo istiraatiiji ah muqdisho ayayna 30 kilomitir u jirtaa. degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka jiro maamul kaas oo hoostaga koonfur galbeed. runtii maamulka degmada afgooye waxaa lagu dhaliilaa in ay ka gaabiyeen wax ka qabashada amniga iyo weliba dhismaha goobaha ganacsiga iyo wadooyinka degmadaas. balse hadda degmada afgooye waxaa kusoo kordhay falalkan kufsiga ah. runtii kufsiga noocan ah waxa uu maalmihii dambe si xoog ah ama si xowli ah kaga jiray magaalada muqdisho caasimada dalka. runtii magaalada muqdisho dhowr gabdho lagu kufsaday weliba waxaa loogu sii daray dil. laakiin degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dhacdadii maanta ka dhacday runtii waa dhacdo saameyn iyo xanuun badan bulshada ku reebtay. dhammaan shacabka oo degmadaas waxay shabeellaha hoose waxay mar waliba ay jecel yihiin inay ku noolaadaan amni. falkaanna waxa uu noqonayaa fal aad u naxariin badan. maamulka degmada afgooye xiriir aan la sameynay waa inuu suurtagali weysay inaan qadka telefoonka aan ku helno. waxaan rajeynaynaa in saacadaha soo socda maamulka degmada ay ka hadlaan falkan kufsiga ah ee loo geystay maamooyinkan da-da ah. runtii afgooye waa falkii labaad oo ka dhaca. runtii Soomaaliyo gabadhii la latay oo aad ku da-yaraa ilaa hadda meel loogu sheegay ma lahan kiiskooda. weli waa dhibanayaal oo waxaa weli isbitaalka kula jiray waalidiintooda. runtii waxaana soo caawiyey shacab Soomaaliyeed oo ka danqaday falkaas kufsiga ee labadaas gabdho aad ku da-yar loo geystay. runtii haddana waxaa falka loo geystay dad waalidiin ah subxaanallah oo maamooyinkeena oo kale ah oo hooyooyin ah oo ayeeye ah. runtii afgooye waxaa la dhihi karaa waxay noqotay degmo amnigeeda iyo weliba kufsigeeda faraha ka baxay. waxaan rajeynaynaa in degmadaasi dib loo fiiriyo oo maamulka uu ka jiro oo hoosta koonfur galbeed inuu dib u fiiriyo. waayo degmadaas waxaa ka taliyay koonfur galbeed oo dowladda dhex kama taliso. waxaan rajeynaynaa hay-adaha amniga kuwa cadaaladda inay wax ka qaban doonaan falkaas kufsiga maanta dhacay. dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa fal walba kufsi oo la geysto ama dhalinyaro ha geysto ama nin da' ha geysto waxaan rajeynaynaa in tiirka ama cadaaladda la waafajiyo. runtii dad islaam aan nahay diinta islaamkaan lagu barbaariyey aa ku dhalanay. runtii qofka lasoo qabto oo fal kufsi ah asigoo ku jiro lasoo qabto waxaa wanaagsan in shareeca islaamka la mariyo. runtii ma fiicna xeer iyo waxyaabaha inaa ku dhaqanay dastuur iyo bac madow la iska geeyay lacaga iyo waxaas ma wanaagsano. runtii waxaan rajeynaynaa in dowladda Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed wax walba ay ku dabaqaan diinta islaamka. qofka maanta gacanta loogu soo dhigay in shareecada waxay ka qabto in la marsiiyo. waxaan rajeynaynaa falkaas inuusan soo laaban. dadkuna degmada afgooyna waxaan ugu baaqaynaa in falkaas ay ka dhiidhiyaan biraanbaxyo ay sameeyaan si ay dareenkooda u muujiyaan si uusan falkaas ugu soo laaban degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. mahadsantihiin muuqaalkaasna intaasaa idinkugu talagalnay. runtii aadaan ugu xunnahay wax maanta ka dhacay degmadaas. waxaan rajeynaynaa in cadaaladda la waafajin doono dhagarqabahaas ee geystay falkaas. mahadsantihiin. haddaad page ku cusub tahay like saaro si aad warar iyo warbixin iyo muuqaalo aad u hesho. mahadsantihiin.